Waqti dhexdii ahayd ayaa laba nin oo mid reer baadiye ahaa midka kalena reer magaal aqoon-yahan ah ayaa waxa ay isku qabsadeen arrin la yaab leh. Taasoo ahayd in ay su'aalo isweydaarsadaan oo ay sharad dhigtaan, qofkii ka jawaabi waaya su'aal uu lacag bixiyo. Reer baadiyihii ayaa yidhi, waxaad i weydiisaa su'aal, haddii aan ka jawaabi waayana waxaan bixin doonaa lacag $5 u dhiganta. Aqoon-yahankii oo la yaaban ninka reer baadiyaha ayaa yidhi, waan ogolahay. Adigana su'aal i weydii, haddii aan ka jawaabi waayana waxaan ku siin doonaa lacag u dhiganta $500. Reer baadiyihii ayaa yaabay oo qosol la dhacay, waxa uuna go'aansaday in uu xeelad adeegsado si uu lacagta badan ee aqoon-yahanku ballan qaaday uu uga helo. Sida ballantu ahayd, waxaa su'aashii ku hormaray ninkii aqoon-yahanka ahaa, waxa uuna yidhi, waxaad sheegtaa, qoraxda iyo dhulka yaa ballaadhan. Reer baadiyihii ayaa geesaha fiirfiirshay, waxa uuna garan waayey wixii uu ku jawaabi lahaa, balse taas beddelkeeda waxa uu bixiyey $5 isagoo ula jeeday, ma garanayo jawaabta. Reer baadiyihii ayaa isaguna markiisa su'aal la kala baxay, waxa uuna yidhi, waxaad sheegtaa, wax haddii cirka loo tuuro 2 lugood leh, haddii ay dhulka ku soo dhacaana 4 lugood leh. Aqoon-yahankii waaga ayaa ku baryay oo xaalkaa ku cuslaaday, wuxuuna garan waayey jawaabtii. Danta ayaa ku kaliftay in uu $500 bixiyo maadaama ay ballantu sidaas ahayd. Balse aqoon-yahankii isagoo yaaban ayuu ninkii reer baadiyaha ahaa su'aal ku celiyey oo weydiiyey, war waxaan aad i weydiisay, marna 2 lugood leh marna 4 lugood lehi, waa maxay? Reer baadiyihii oo xariif ahaa ayaa waxa uu soo bixiyey $5 waxa uuna u taagay ninkii isagoo ula jeeday in isagu xitaa uusan garanayn su'aasha jawaabteeda, balse ujeeddadiisu ahayd inuu lacag ka xariiftamo. Haddaba haddii aad ka heshay sheekadan, fadlan la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.